asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka aynuga hadli doono dhaqangelinta qorshaha isla xisaabtanka ee horey ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo doorka uu ka qaadan karo wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ee dalka iyo xiriirka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. si dowladdu ay u hesho kalsoonida shacabka waxaa laga maarmaan in hay-adaha dowladdu ay astaan u noqdaan ku dhaqanka sharciga iyo dowlad wanaagga isla xisaabtan ku salaysan hufnaan, daacadnimo, wadaniyad, daahfurnaan iyo karti. hay-adaha dowladdu kuma sifoobi karaan astaamahaasi haddii aan la helin qorshe ballaaran oo isla xisaabtan ah iyo tallaabooyin cadcad oo lagula dagaalamayo musuqa, eexda, xatooyada hantida dadweynaha. marka isla xisaabtanku macnaheedu waxa weeye in qof walba waa mas'uul ah hadduu qaan gaaro wixii loo dhiibay oo xil ah noocu doonaba ha noqdo darajadu doonana ha gaaree ama mid qoys ha noqoto ama mid mujtamac ha noqoto mid dawladeed ha noqoto mas'uuliyad kasta oo qofka loo dhiibay waa in lala xisaabtamaa iyaguna ay dadka la xisaabtamaan mas'uuliyadda loo dhiibay waxa ay hayaan iyaguna mas'uuliyadda wakiil uga dhigteen dadka talada haya waa inay la xisaabtamaan. marka isla xisaabtanku macnihiisu sidaa weeye. isla xisaabtan waa system socdo oo shaqeynayo dawli ah in